waa habeen sabtiya bisha May waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena internetka voasomali.com idaacadeena caawana waxaa idin haya anigu maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah roobab 24 saacadood ee lasoo dhaafay ka da'ay dalka Jabuuti oo ay dadweynuhu ku diirsadeen sida xoogan ka filayna uu noqon weeday yaman buu si xoog ugu yarjiiday xareed baa jirta waa barwaaqo waa wasaan sheegayay waa alxamdulillaah waa soonko fududaaday saaka siduu waagu bariyay lama kacad baan u maarag gaajo ma dareemin xareed ma dareemin waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wax soo saarka kalluunka Soomaaliya oo ay la soo gudboonaadeen caqabado fara badani kalluun fugeysi baa jira waxyaabo badan baa jira ma fahamtay dhibaatooyin badan baan cabanaynaa niman Iiraanin la yiraahdo iyo waxyaabo badan baa dalka soo galay saasay tahayna dee annagu dawlad aad ma taqaanaa power u lehna ma nihin nimankaasitana aad bay annagu dalkeena dhibaato weyn ugu haya malaayiin qof oo dunida ku nool oo maanta daawanaya xafladda guurka Prince Harry iyo weliba Meghan Markle barnaamijyadii martida microfonkii cawayska Washington iyo qodobo kale ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha dhegaysan doontaan marka hore warkii caalamka saraakiisha gobolka Texas ee dalka Maraykanka ayaa dacwad ku oogay nin 17 jir ah oo toogasho ku dilay 10 qof oo badankoodu ay ahaayeen arday kuwaasoo ka tirsanaa dugsiga sare ee Santa Fe ee gobolkaasi Texas ardayda ayaa sheegay in ninkan hubaysan ee ay boolisku u aqoonsadeen inuu yahay Dimitrios Bogartis kaasi oo rasaasa dugsiga la beegsaday 8 subaxnimo ee maalinnimadii Jimcihii gudoomiyaha gobolkaasi Texas Greg Abbott ayaa sheegay in boolisku ay walxaha qarxa ka heleen ninkan eedaysana ah gurigiisa gaadhigiisa iyo weliba sidoo kale agagaarka dugsiga uu toogashada ka sameeyey gudoomiye Abbott ayaa sidoo kale sheegay in hadda ninkaasi dacwaysanaha ee gacantooda ku jira oo ay ku tala gashanaa in weerarka kadib uu isdilo isagoo markii lasoo qabtayna booliska u sheegay in ay taasi u suurtageli weyday dad ka badan 100 qof ayaa dhintay kadib markii ay dayuurad ku dhacday garoonka dayuuradaha ee dalka Cuba wax yaroon kadib markii ay duushay saraakiisha Havana ayaa sheegay in 3 qof laga soo badbaadiyay burburka diyaaradda balse iyagoo aad u dhaawacan loo duuliyay cisbitaal u dhow warbaahinta Cuba ayaa sheegtay in dayuuraddan oo u kala gooshtay waddanka gudihiisa ay ku duulaysay garoonka dayuuradaha caalamiga ee Jose Marti markii uu shilku dhacay diyaaraddan ayaa u socotay bariga dalkaasi dad goobjooga ayaa sheegay in diyaaraddu ay ka daba wareegtay ka hor intii ayna dhicin madaxweynaha Cuba ayaa booqday meeshii ay diyaaraddu ku burburtay guddida doorashooyinka ee dalka Ciraaq ayaa sabtidan maanta sheegay in isbahaysiga uu hogaamiye sheekha Shiicada ee Muqtada Sadr ee hore dagaalka ula galay ciidamadii Maraykanka ee Ciraaq ku sugnaa xilligii dagaalku halkaasi ka socday uu ku guulaystay kuraasta ugu badan ee doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacay guushan kooxda Sadr oo helay 54 kursi ayaa beegsan doonta isbahaysiga Ciraaqi Communist isbahaysigan laga adkaaday ayaa galay kaalinta labaad iyaga oo helay 47 kursi halka isbahaysiga uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Haydar al-Abadi ayaguna galeen kaalinta saddexaad isla markaana ay heleen 42 kursi al-Sadr uma aanu tartamin isagu kursi baarlamaanka iyadoo taasina ka dhigaysa in aanu ra'iisul wasaare noqon karin hase yeeshee waxa uu inta uu hoggaanka u haya isbahaysigan ayaa awood u siin doontaa inuu door ka ciyaaro wadaxaajoodyada iyo walow dhismaha dowladda Ciraaq xogayaha difaaca dalka Maraykanka Jim Mattis ayaa waqti hore oo toddobaadkan ka hadlay ayaa sheegay in Maraykanku uu garab taagan yahay doorashada Ciraaq inkastoo ay la yaab noqotay guusha Sadr Mattis ayaa sidoo kale ku hambalyeeyay Ciraaq inay u dhaqaaqdo dhanka dimuqraadiyadda ilaa iyo 3 kiis oo cusub oo cudurka Ebola ayaa la xaqiijiyay in laga helay magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan oo qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dhawaaqan ka soo yeedhay wasaaradda caafimaadka ee Congo ayaa abuuray cabsi iyo qayladhaan la xiriirta in fayraskan dilaaga ahi uu ku fido magaalooyinka ay dadku badan yihiin dalkaasi war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda Jimcihii shalay ayaa lagu xaqiijiyay in kiiskan cusub ee Ebola laga helay magaalada Mandaka halkaasi oo horaantii toddobaadkan la xaqiijiyay in hal qof uu soo ritay ilaa iyo hadda 17 kiis ayaa la xaqiijiyay tan iyo markii cudurkani ka dilaacay Congo hal qof ayaana ilaa iyo hadda u dhintay
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay jimcihii shalay inuusan weli go'aansan inuu ugu yeedho fayraskan ka dilaacay kongo mid xaalad deg deg ah oo caalami ah gelinaya adduunyada, laakiin waxa ay wasaaraddu ku talisay in dalkaasi aan la xadidin safarka iyo xidhiidhka ganacsiga caalamiga ah ee lagu tegayo. fiidwacan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatanna jabuuti. tan iyo xalay waxaa ka da'ayay magaalada jabuuti iyo nawaaxigeeda roobab biyo dhigay magaaladaasi, inkastoo duufaankii la hadalhayay aanu saamayn ku yeelan. haddana waxaa si cad loo dareemayaa dabaysha duufaanka oo aad u hadhaysay jabuuti, gaar ahaan xagga xeebta jabuuti. waryahayaga ramadaan muuse oo soo arkay goobaha qaarkooda in baddu ay soo gashay waddada amaba laamida, kadibna ay dib uga laabatay. sidoo kale badda ayaa xoog u kacsan iyada oo la dareemaya mawjado xooggan oo islaba rogaya. dadka jabuuti ayaa ka walaacsan xaaladdaas, inkastoo intooda badan ay tilmaameen inay ka raysteen kulaylkii iyada oo lagu guda jiro wakhtigii bisha barakaysan ee ramadaan. haddaba waryahayaga ramadaan muuse ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha magaalada jabuuti. bismillah, magacaygu waa axmed ayaanle. maanta roob baa ka bilaabmay ilaa shalay tole jabuuti. roobku waa roob maalmahanba la saadaalilayay oo gacanka cadmeed buu ka bilaabmaa la lahaayoo wuxuu ahaa topet tropical baa lagu yidhahdaa afka mudiqi ule yar af soomaaligeenna dabeyle xoogan baan malayaa. waa barwaaqa dee sidii xoogan ka filayna uu noqon weeday dalalka sidaan facebooka ka arkayno yaman buu si xooga ugu yerjiiday. soomaalida wax waran hayaa ilaa imika ma haye, laakiin wax dhibaato igu maqalay ma jiro. jabuuti soonku waa bilaabmay, si fiican buu bilaabmay. barwaaqo roob baa da'ay. caasimadda lama dareemayo, dhibtiisumbaa la dareemi doonaaimika wadooyinkii markaan soo dhex maray xareed baa wada wadhnaydoo biyaha fadhiya. dabcan ha waa caasimad dikadaa jira, marka xareeddu dhulku liqi maaye biyuhu dusha usoo bixi doonaan. xareed baa jirta, waa barwaaqo, waa sidaan sheegayey. waa alxamdulilah, waa soonkoo fududaaday. saaka siduu waaguu baryay iminka cadceed baan u maarag, gaajo ma dareemin, hareed ma dareemin. iminkaan soo baxay salaadii casar tukaday, marka waa banaadha unbaa lagu jiraa. tacab baa jiro, xaafado badan biyihii baa kala xidhay, soo taasu ma jirto? way jirtaa oo roobku de awal waxaa lagu yaqaanay roobka di'i jiray jabuuti inuu 40 milimitr ba noqdo sanadka dhanba. iminka maanta kan da'ay waa biyo xooga. way jirtaa in dadku isku tallaabi waayo, in ay xataa silida suuqa dadku tegi waayaan, dumarku ay wax soo iibsan waayaan. laakiin dadku way ogaayeen maalmo ka hor bay baa lasii sheegay saadaalinta in kayd baa lasii dhigtaan u malayaa. waa dhibaato jirta, waa wax jira. iminka 40 sanaha jabuuti biyuhu way joogsadaan. waa wax dawladdu ay u maqan tahay u malayaa, hawsheeda lagu jiro. guryaha caasimadda inteeda badan waa la dhisay. insha Allah waxaan rajaynaynaa khayr mar rajaynayaa iyo baraare iyo soom wanaagsan. muslimiinta caalamka waxaan rajaynayaa soon iyo nabad baan rajaynayaa, iyo Falastiiniinta Allah ka dulqaado dhibaatada saameysay. way magacaaga saddexan waxaan dhahay Ibraahim Axmed Cali. way ka waran Ibraahim, roobkii waa kan uu daay, duufaan baa la hadalhayay, ilaa imika lama hayo waxa la hayaa, laakiin roob daayay tan iyo xalay tole. marka bal nooga waran. anigu horta alxamdulilah, duufaankani waxa la sheegay horta Ilaahay laga hayo, ilaahayna nooma keeno. in yaroo imika lagu doomo baa diimiliida ayaa arkaysaa waxa xaafadaheenu say biyuhu ay yihiin. haddii uu sii deylaa baleeska familied itaalo ma hayno, marka uma malanayo duufaankan wax jiro maaha, uma malanayo, uma aaminsana. roobka ka waran roobka alxamdulilah, wallahi alxamdulilah si bash baraaqiyo ami noogu daay alxamdulilah. laakiin xaafadihii baa kala xidhan, biyihii baa dhex taagan. shaq zoomba soonkooda xidheen, shaq zoomba xidheen. waa la dhuraya, wallahi waa iska dee maasha Allah weyn. bal ka waran soonkii oo tacabka inta leeg. maanta soonka qofkii baraas xore kii kala maanta ma dareemay, maxaa kii birjay maanta alxamdulilah, maanta lama dareemay maanta. waa dhulka qabow. qulka dhuga barafo geeldi baa maanta ma jiro, maanta waa barda weyn. way magacaaga saddexan ii sheeg. aamina weeyaan, aamina Axmed baa la yiraahdaa. way aamina, ka waran jaad baad ku iibinaysaa xaggan tan iyo xalay tole roob baa daayay Jabuuti. waa tan imika roob biyihii wada waran yihiin dariiqa goobtan aad fadhidaa. bal nooga waran horta soonkii iyo roobkan socday ilaa xalay. waa nimcad Ilaahay hooyo, nimcad Ilaahay weeyaan. roobku inoo daay, wax dabayl ah iyo wax dhibaato iyo waxba kama inoo arkin. wixii la sheegayna Ilaahay uu naga nabadgeliyay. waa nimcad Ilaahay inoo daaday soomkii nimcada. haraadnama hayo,
waxba nama hayo la sheegay duufaanku waa soo maaha duufaan buu ahaa ilaahayna nooma keenin roob iyo nimcad iyo badhaadhaanu ka qaadnay inaanu soomanahay isma moodayo waa khayr aad iyo aad waxaad iga warantaa halkan jaad baad ku iibinaysaa haddana waxaa la moodaa dariiqii inay biyo taageen dadku ma ku soo gaadhayaan ama kaa iibsanayaan ha wixii ilaahay qora wuu imanaya wixii ilaahay qora okay sugsuga hadalka roob iyo soonku waa nimco ilaahay hooyo alxamdulilah waanu ku farxaago saddexan hortooda nuura salaban kaahin way roobkiyo soonka ka waran alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba wiilka ay iyada u tahay boqorada ingiriiska queen elizabeth waa prince harry ayaa guursaday megan markale oo u dhalatay dalka maraykanka waxayna noqonaysaa guurka gabadh ka tirsan hollywoodka maraykanku ku biirtay qoyska boqortooyada ee taariikhda soo jireenka leh ee gaadhaysa 1,000 sannadood haddaba khadka telefoonka ee magaalada london ayaan goordhaweyd kula xidhay wariyaha v o eda ee london ridaan xaaji cabdiweli oo aan weydiiyey sida uu aroosku u dhacay aad baa umahadsan tahay sandheere runtii aroosku wuxuu ahaa aroos si weyn loogu diyaar garoobay dad badani ay kasoo qayb galeen waxaana la dhihi karaa guud ahaan marka la eego dalkan britain inta joogtay meesha ka sokow dadku waxay aad iyo aada ugala socdeen warbaahinta dalkan waxaana arooska uu ka dhacay magaalada qurxoon ee windsor ee ku taala banaanka london iyadoo guud ahaan marka la eego guurka princess harry iyo gabadha megan markle uu ahaa mid la wada sugayey oo baryahan dambaba runtii jaraa'idka iyo dadku ay aada u hadalhayeen marka si rasmi ah nikaaxoodii markii uu dhacay kadib waxaa loogu dhawaaqay in maanta wixii ka dambeeya ay yihiin amiir iyo amiirad qoyska reer boqorna ay ku biirtay waa la socotaa boqortooyadan guunka ah waa mid si weyn dalkan saameyn ugu leh oo dadkuna inta badan ay xiiseeyaan kulamadooda iyo dabcan gaar ahaan marka laga hadlayo guurkan oo kale oo weliba harry uu ahaa dee nin dhalinyaro ah oo la sugayey in waxa soomaalidu ay yidhaahdaan in arooskiisa loo kala kiciyo walaalkiis ka weyn ayaa horey u aroosay marka ilaa 600 oo qof oo marti gaar ah ayaa ku sugnaa hoolka st george chapel markii munaasabadan ay dhacaysay waan gartay markaa dadka magaca lee yimid yaa ka mid ah runtii dad badan oo kala duwan ayaa munaasabada ka qayb gelayay dad badan oo xataa maraykanka ka yimid ayaa jira maadaama gabadhu ay tahay maraykan laakiin dadka caanka marka la eego waxaa ka mid ah haweeneyda inta badan barnaamijyada muuqaalka lagu yaqaano ee opera waxaa kaloo meesha ku sugnaa maanta idris elba iyo gabadha ay leeyihiin xiriirka xoogan ee soomaaliyeed ee sabrina dore waxaa kaloo ku sugnaa dad badan oo david beckham uu ka mid yahay iyo sar elton john marka dadka runtii lama soo koobi karo laakiin dad kala duwan oo dhinacyada ciyaaraha ka socda kuwa filimaanta ka socda kuwa ka socda hay-adaha waaweyn ee xuquuqul insaanka dad badan ayaa meesha ku sugnaa waan gartay markaas sidee looga arkay dalka britain gudihiisa runtii waxa waaye marka dhinac laga eego waa la socotaayo boqortooyada waxaa loo arkaa in marar fara badan ay ku takrifalaan dhaqaalaha dalka in ay yihiin dabaqad sare oo dadka ay iska weynaysiiyaan marka in gabar hooyadeed ay tahay madow weliba hooyadeed doria ayaa laftirkeeda maanta meesha joogtay oo markii nikaaxa uu dhacaya la arkayay iyadoo ilmeynaysa inkastoo aabeed una kasoo qayb gelin arrimo xanuun darteed marka waxaa la dhihi karaa uun waa inkastoo britain ama dalkan ingiriiska inta badan ba lagu yaqaano inay dadyo isku dhaf ah oo is-ogol oo maaragtay is-ixtiraamaya ay joogaan haddana in gabadhan ay kusoo biirto waxay dad badan u muujinaysaa in loo arko hadda ama sawir kale laga qaato reer boqor oo aan loo arkin inay dadka iska weynaysiinayaan ama ay ka dhex baxeen bulshada inteeda kale ama aanay dooneyn in cid kale oo aan ahayn caddaan ama reer boqor aan ahayn inay soo dhex galaan ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o eda magaalada london oo khadka telefoonka ee magaaladaasi goordhaweyd iigu warramayey fiid wanaagsan dhammaantiiba dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba kalluumaysatada soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu nasiibka badan afrika maadaama ay haystaan xeebta ugu dheer qaaradda
inkastoo ay taasi jirto haddana wax soo saarka kalluunka soomaaliya ayaa waxaa soo wajaha caqabado fara badan. wariyaha v o eda jason bartington ayaa boosaaso kula kulmay qaar ka mida kalluumaysatada soomaalida. warbixintan ayuuna noo soo diray, waxaana warbixintaasi noo soo koobaya waryahayaga nuur xasan nuur. aroor walba kalluumaysatada magaalada dhacda badda cas ee soomaaliya ee boosaaso waxay suuqa la yimaadaan noocyo kala duwan oo ka mid ah kalluunka oo ay ku jiraan toonnada, yaxaaska, maarliinta iyo kuwo kale. waxay u eg tahay in kalluumaysatada ay badda kala soo laabtaan rar badan oo kalluun ah, laakiin xaalku sidaasi ma ahan, sida uu sheegayo maxamed ilyaas cabdulqaadir oo ka cabanaya maraakiib ajnabi oo dhibaato daran ku haya kalluumaysatada soomaaliyeed. kalluun fugaysi baa jira, waxyaabo badan baa jira, ma fahantay, dhibaatooyin badan baan cabanaynaa. niman eeraanin la yidhaahdo iyo waxyaabo badan baa dalka soo galay. saasay tahayna dee annagu dowladda aad mataqaanaa power u lehna ma lehin. nimankaasitana aad bay annagu dalkeenna dhibaato weyn ugu haya. muddo iminka laga joogo 10 sannadood kalluumaysatada soomaaliyeed ayaa hubka qaatay si ay ula dagaalamaan doonyin kalluumaysi oo ajnebi ah. qaar kuwaasi ka mid ah ayaa isu beddelay burcadbadeed afduub kula dhaqaaqay maraakiibta ganacsi ee mara xeebaha soomaaliya iyo marinbiyoodka geeska afrika. dadaallo ay sameeyeen ciidamo caalami ah ayaa wiiqay awooddii burcadbadeedda, hase yeeshee ilyaas cabdulqaadir ayaa sheegaya in ciidamada ajnebiga ah aysan waxba ka qaban maraakiibta sida sharci darrada ah uga kalluumaysata xeebaha soomaaliya ee dhibaatadana ku haya kalluumaysatada doonyaha yaryar wata ee soomaalida. dee nimankaaniti annagu aad bay nooga fogeeyeen, ma fahantay. badweyntu wax la yidhahdana waa ka shaqaystaan. aalad shabaagahoodana shabaago aad u dhaadheer weeye, waa naga aalad badan yihiin. khubarada ayaa rumaysan in inta ay jiraan kalluumaysatada ajnebiga ah ee sida sharci darrada ah uga kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya ay jiri doonto khatarta ah soo laabashada burcadbadeedda. sidaas daraaddeed ayay qaramada midoobey rajaynaysaa in ugu yaraan barnaamijyada horumarinta ah ay u samaynayso wax soo saarka kalluumaysiga soomaaliya uu wax u tari karo kalluumaysatada soomaaliya. nawaaxiga magaalada boosaaso koox dumar ah ayaa lagu siiyaa tababaro la xiriira suuqgeynta hilibka malayga. dhammaan kalluunka ay suuq geeyaan waxaa soo dabay oo badda ka soo jallaabay dhallinyaro loo tababaray sidii ay gunta badda uga keeni lahaayeen kalluun kala duwan. dhallinyaradan ayaa waxaa sidoo kale la siiyey doonyo gaari kara meelo fog. maanta waxay keeneen yaxaas. marka la jarjaro oo la qallajiyo ayaa loo iibgeyn doonaa magaalooyinka soomaaliya. dumarka iibiya ayaa hela lacagihii ay shaqaysteen. sidoo kale waxa ay helaan kalluun cusub oo maalin walba ay ku quudiyaan qoysaskooda. dawo sheekh maxamuud ayaa ka mid ah dumarka ka faa'iidaysta barnaamijkani. hadday ilmaha iga dayacsanaayeen dariskale ku dhaaf jiri iyakoo wareegayana imaa jiri. hadda hooshaana subaxdii iska qabhaa ilmaha u sii tashanaaciyow. tanaa hadda inaa wax kale laga rajeeyana intana ugu fiican. michael sayfins oo isku duwo ka ah barnaamijka qaramada midoobe ee lagu taageero kalluumaysatada soomaaliya ayaa sheegay in dad badan oo gaaraya ilaa iyo 100 ruux ay hadda shaqo ka heleen barnaamijkani, sidoo kalena ay tiigsanayaan ilaa dhammaadka sanadkan in ay gaarsiin doonaan shaqo abuurka ilaa iyo 500 oo ruux. hadafka barnaamijka ayaa ah in la shaqaalaysiiyo dhallinyaro maxalli ah kuwaas oo ugu dambayntiina kalluunka soomaaliya u iibgeeya suuqyada adduunka. waa kan michael sayfins. There would be nothing better than the youth from the community catching the fish with good quality and so forth on board. ma jirto wax ka wanaagsan dhallinyarada deegaanka oo si tayo leh oo wanaagsan badda uga soo kalluumaysta, kadibna kalluunkaasi u keena bulshadooda si loo suuq geeyo. waxaad dhihi kartaa waa isku filnaansho, soo jilaabasho, habayso oo suuq geyso. intii ay soomaaliya la halgamayso sidii ay u xakamayn lahayd xeebaheeda, barnaamijyada noocan oo kale ah ayaa dhallinyarada kalluumaysatada ah ka caawin kara in aysan dib ugu laaban falalka burcadbadeedda. waa hagaag dhegaystayaal, warbixintaasi waxaa ahayd warbixintii wariyaha v o eda jason bartington uu ka soo diray magaalada boosaaso, waxaana inala socodsiinaya inoo soo koobiyey waryahayaga nuur xasan nuur bukhaari. haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli. toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiraxmaan xoosh jabriil oo ah wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya. ramadaan kariim, ku soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka. waa mahadsantihiin bahda v o a iyo ridwaan aad oo mahadsantihiin ramadaan kariim.
ramadaan kariim. muqdisho dhowaan waxaad ku soo gebagabayseen shirweynihii lagu daahfurayey dib u eegista dastuurka oo muddo 3 maalmooda socday, dad badanina ay ka soo qayb galeen. ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa bal inaad ka hadasho ujeeddada ugu weyn ee shirkan aad u qabateen maxay ahayd, maxaa idinku dhaliyey, dadkase ka soo qayb galay xaggey ka kala socdeen? ridwan, ujeedada ugu weyn oo shirka wuxuu ahaa in la daahfuro ololihii dib-u-eegista dastuurka qaran oo lagu ballamay 2012 markii dastuurka lasoo dhamaystiray 2012 oo laga joogo hadda 6 sano waxaa lagu ballamay in la sameeya dib-u-eegista dastuurka si loo saxa waxyaalaha mugdiga ku jiro, waxyaalaha iska hor imaanaya, iyo in la dhamaystira arrimaha siyaasadda ah oo ku salaysan sidii loo dhamaystiri lahaa federationka. waa laga soo cagajiiday 6 sano soo dhaafay, ama ha noqoto farsamo xumo la-aan ha noqoto ama waxyaalo kale ha noqdaan. marka waktigeeda lasoo gaaray sababta waxaan ka shaqeynayna marka sidii hay-adaha ama dadka saamiga kuleh ama stakeholderska ah sidii isku aragti uga noqon lahaayeen sidii hore loogu socon lahaa. waana kasoo shaqeynayo maamul goboleedeedna waa lasoo tashanay. hay-adihii dastuuriga ahaa oo ahaa guddiga dib-u-eegista dastuurka baarlamaanka, labada aqal iyo guddiga madaxa banaan dib-u-eegista hirgelinta intaba, iyo ururada bulshada kulli waxaan iska soo wada yeelanay aragti yani loo wada sameeyahay oo isku si loo arko. marka hadda shirkaan gabadeena wuxuu ahaa inaan dadka u daafurnahay idhaahdo aragtidaana la nimid roadmaadaan soo sameynay ama tubkii lagu gaari lahaa dhamaystirka dastuurka. waa qaybinay maalintii kaasaan ka badan qusonay. waa gartay. marka la fiiriyo arrintan aad soo saarteen ama heshiiska ama waxyaabaha aad isla garateen 3dii beri ee shirka uu socday ee ah halka laga aadayo meeshan iyo sida dastuurka dib loogu eegayo, waxaad moodaa in dad badan ay talooyinkooda bixiyeen, laakiin haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in maamuladoo kale aanay ku qanacsanayn sida ay wax u socdeen. marka la fiiriyo ururada bulshada rayidka laftirkooda dhaliilo ayay idiin soo jeediyeen. maxaa ugu weyn oo aad ku qiimeyn lahayd shirka? ma dhaliilaha badnaa mise talooyinka kale ee dastuurka dib loogu eegi karaa wanaagsanaa? aniga waxaan qabaa un kolleyba heshiis wadar arag laga wada leeyahay bulshada soomaaliya dhan inaan gaarnay. sababtaan ku gaarana waxay ahayd sanadkii lasoo dhaafay wax kalaba kamaanan shaqeyn. dad badan waynoo yaabanaan xil lahayn. wasaaradda iyo guddiyada dastuurka intaas safar ay ku jiraan waxay tagayaan goboladii iyo intaas dooda la shiraan maxay tahay yani ujeedadaas waxbaa ka dambeeya oo ahayd inaan isla gaarnaa isla jaan qaadnaa maamul goboleedada iyo wasaaradeyda. waxaan samaysanay waxa la yihahda moca forum oo ah minister constitutional affairs forum oo ah wasaarada dastuurka iyo wasaaradeena aan isugu nimaadno 3 bilood mar aan aragnaa si aanan yani aanan usan loogu dhicin mataqaana isfaham la-aan. 4 goor hadda kulanay, 2 goor xamara ku kulanay, mar waxaan ku kulnay garowe, marna waxaan kulnay baylow, haddana waxaan ku kulmaynaa galmudug iyo kismaayo. waxaan helnay aragti fiican kala wada leedahay. waxaa kaloo jiro si wada yeelan 2 guddi ee dastuurka ahaa. guddiga madaxa banaanaan uu madax u yahay ka baarlamaanka madax u yahay mudane cabdiqaydi, iyo kan kale uu madax u yahay mudane maxamed afrax. labadana waxaan kaga gaarnay is-afgarad keliya maahina waxaan wada seexanay wax la yidhaahdo tubkii lagu gaari lahaa dhamaystirka dastuurka ama road maadaan samaysanay. heshiis afgaradna waa wada samaysanay. waxaana ku wada xafiiska prime ministerka hortiisa inaan heerkaas gaarana waxaa sabab u ahaa madaxweynaha iyo prime ministerka oo ka shaqeysaan u wada heshiin lahayn, isku meel aan usoo wada istaagi lahayn. marka intaas waxaa kasii weynaa wasaaradeyda uu hogaaminayo wasiirka hogeenkeyga doctor xuseen cabdicilmi iyo agaasimaha jubeer. waxay ka shaqeynayeen ururada bulshada sidii lasoo keeni lahaa, ama ha noqoto qaarka joogaan puntland ama south central ama gobolada ha joogaan. waxaan isla gaarana waxa waaye ururo bulsho ayagana lala jaan qaaday. xataa waxay ka shaqeeyeen markii khilaafaadka naga dhexeeyey guddiyada hay-adaha dastuuriga ah
inay ayaga noo kala dabqaadayeen oo ururkan la yidhahdo tunsa oo ka yimaado puntland iyo soshenza oo ka yimaado koonfurta iyo kuwa kale oo gobolada ah sida junsa oo jubbaland iyo inay ayaga noo kala mataqaana dabqaadayeen marka waaya marka sidoo la wada socdo hal meel lasugu yimid ah waa gartay marka laga hadlayo waxyaabaha dabcan muhiimka ah ee shirkaad uga hadasheen waxaa ka mid ah in dastuur laysla ogol yahay soomaaliya ay yeelato mabaadi'dii dastuurkaas lagu samayn lahaa iyo tubtii loo mari lahaa laftirkeeda la qorsheeyo laakiin waa la socotaayo xaaladaha hadda dalka ka taagan marka la eego awoodaha siyaasadeed aad bay isugu dhex qasan yihiin marka laga hadlayo dowladda dhexe madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii awoodahoodii aad uma kala qeexna maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe sidoo kale awoodahoodii ma qeexna marka maxaad rajaynaysaan marka laga hadlayo in dastuurka lagu caddeeyo awoodaha siyaasadeed iyo kuwa qaybsiga khayraadka iyo dhammaan waxyaabaha muranada faraha badan keenaya mar walba runtaa waayo ridwan waxyaalaha ugu weyn oo sanadkan 2018 wax ka qaban loo bahayna waxyaalahaas waayo annagu markaan soo sameynay qorshe hooleedku aadan 2019 madaxweynaha ibraahim kadib waxaanu dhahayn waa dheer tahay waxaan rabnaa sanadkan inuu soo gudaanado waxyaalaha ugu badan in la gudaano loo bahayna waxaa waaya sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed loogana heli lahaa oo qaybsiga khayraadka ha noqdaan arrimaha dakliga iyo canshuuraha ha noqdaan waxyaalahaas dhan waxa u dhexeeyo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe waxa u dhexeeyo in meel lasoo dhigo maxaa hadda waxaan isku magacaabnaa dowladda federaalka soomaaliya federaalna waxay leedahay calaamaday leedahay calaamada ugu weyn ee leedahay waxaa in la kala qeexaa maxay waa maxay awoodda maamul goboleedka waa maxay awoodda yani dowladda dhexe waa maxay awoodaha lasla leeyahay lama qeexin yani meesha ay ka timaado mashaakilaadka inuu ka yimaadaan meeshaas wa taasna prime ministerka iyo madaxweyneha kulli ku go-aantaa waxaan ku sheegaya ra-iisul wasaaraha inuu sameeyey guddi la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo dhan yahay oo isniin walba kulmo guddigaas waxaa looga hadla waxaa waaye dastuurka si loo dhamaystiri lahaa arrimaha federationka hadda ka hadlayay si loo dhamaystiri lahaa badan iyo sidii loosugu diyaarin lahaa doorasho hal qof hal cod ah waa garta hadda marka laga hadlayo dabcan soomaaliya laftirkeeda nidaamka federaalka ee u cuntami kara ama ay qaadan karto muran fara badan ayaa ka taagan ilaa 5 maamul goboleed ayaa dalka hadda loo dhisay gaar ahaan marka laga hadlayo muqdisho maqaamkeedii lama caddayn dadkii deegaanku waxay leeyihiin laftirkeenna maamul goboleed ayaanu u baahannahay marka maxaa laga yeelayaa maqaamka caasimadday kula tahay ridwan arrintaas arrimaha oo ajendaha ku jira waayo haddaan kuu sheegay ra-iisul wasaaraha wuxuu sameeyey guddigan la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo leeyahay ama inclusive politics oo wasaarado badan ay ku jiraan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda dastuurka wasaaradda batroolka wasaaradda dumarka iyo xuquuqul insaanka wasaaradda dhalinyarada sportka wasaaradda cadaaladda wasaaradda kalluumaysiga yani wasaaradooda ku jiraan waxyaalaha dhan oo federationka ka hadlaayo looga hadlaayo waxyaalaha ugu waaweyn looga hadlaayo awood qaybsigaas dhan keliya maahana wax kaloo looga hadlaayo waxay tahay maqaamka muqdisho qodobka 9aad ee dastuurka wuxuu leeyahay maqaamka muqdisho waxaa looga hadlaya guddigiisa dastuurka haddaan ku jirnaa olamadii guddigiisa dastuurka waxaa noo furay kutubnaha madaxweynaha maxamed mursal maalinka talaada ahayd waa bilowle waxaan rajeyneynaa inuu bilowdaa munaaqashadaas looga hadlaayo maqaamka muqdisho dhinaca federationka muxuu noqon doonaa waxaana hor yaalo 3 aragti ama options ah waxay noqotaa sidii mataqaanaa washington d c oo kaleeto waa hagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka uu marti ku ahaa wasiirka dastuurka ee soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo soo diyaariyey jacfar kuukay kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington caawana waxaannu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee waraysigii xiisaha lahaa ee aannu la yeelannay mulaxinka saciid nuur guure jinni ishume
iyo abwaanka cabdulaahi maxamed dayeb oo cabdulaahi xawayaan loo yaqaano, iyo sidoo kale fannaanka suldaan seyraar guhaad oo dhammaantood khadka telefoonka ku wada jira. qaybta labaad ee waraysiguna waxa ay ku bilaabmaysaa heesta fardowsa ee uu abwaanku sameeyey, mulaxinkuna uu laxanka saaray, fannaankana uu ku luuqaynayo sida ay ku timid. fardowsa waxaa weeye ninkeeda halkan la degan, waana saaxiibna wiilaan saaxiibna qaba, iyadoo Nairobi joogtaa, miduu ka soo raagay halka qurbuhu joogay, markaa halka uu joogay iyo jacaylka iyo wanaagga uu hayo iyo tilmaamaysaa iyo say u kala fog yihiin. isagana qurbuu joogaa oo dhibaatada qurbaha haddaba aad ka sheekaynayso ayaa halkan ku haysa. labada qurbaha joogaan, labada fardowsa, labadooda nin. marka xilligii waxaan sameeyey taa uu barafku daa'ayey, marka waxaa laga yaabaa ruux inuu kusoo aado gaarigii wadada kaala baxayo, kolka dhibka jira meesha in ruux jooga Africa sidaad uga dhaadhicin lahayd ba ka dhaadhicin ruux dhageelo indalaaba la hadii aad fiidid ugu sheegi lahayd. waa gartay in bal ruux Africa jooga iyo barafka qaabkaad ugu sheegi lahayd ya weeyaan taa iyadana fardan qaaradeedina wax lagu tilmaamo ma jiro, barafka wax lagu tilmaamo ma jiro in Africa. marka heestaasi waa heesta aad leedahay qaalidan jeclaa naftu ay ku qanacdee quruxdeedii dhulkeennan aniga farxad qiimo badan iyo aan ku qaybsanay nolol rabbow hayna kala qarin. gabar adeer anu ahay yaa heestaskale farxad weyna ii eega laxbkeeda alla ii sameeyo maadaama adeerka gabadha ahay. bal heestaas fardowse ka sheekaynaysa dhibaatada laba qof oo isjecel oo kala maqan oo haddana laba wadan oo kala fog joogta, ninkii odaga ahaana uu wadan aad u dhibaato badan oo weligeed aan hore loo arag uu joogo. aan idin maqashiino suldaan aye heestaas fardowsa qurbaha looga sheekaynayo, heestaasi adiga sidee kuu soo gaartay? laxankeeda waatan hadda la leeyahay ustaadku wuu u eexday, ereyadana dabcan waa ereyo cajiib ahoo qiimaha dhulka uu leeyahay ka sheekaynaysa. aad heeska waa heesta siduna aad u qurux badan. iyo jacfar horta heesihii intii aniga aan ugu jeclaan baad soo xulatay, adigana isku baan nahay. waa gartay aadaan uga faraxsanahay midaas. abwaankayga labadayda abwaan allaha sharfo, waan jeclahay heeskana aad buu u qurux badan yahay. dee laba qof oo kala maqan, dadku badi qaar baa kala maqan, qaar baa isla jooga. horta wixii kala maqan allah isu keeno, nabad ha isugu keeno. heeskana aad buu u qurux badan yahay. inta kala maqan ma yara, inta kala maqan ma yara. naftu ay ku qanacday fardowsay qureeshiyo nasab sharaf ku qaniyo, waxaa tahay qadariniyo qurux loo dhameeyo, qayaha dadnimadiyo qayrkeed asluubdhe. adaa qowl wanaagiyo xishoodaan qarsoonayn, qadir kugu manlaysto qarnigani hablaha kacay, qaalanjadii u sidatee mawla ii qoraad tahay. adaa qowl wanaagiyo xishoodaan qarsoonayn, qadir kugu manlaysto qarnigani hablaha kacay, qaalanjadii u sidatee mawla ii qoraad tahay. qaalidaan jeclahay naftu ay ku qanacday, quruxdaydiye ay ku qanacday, dhulkeennan qaniga farxad qiimo badaniyo aan ku qaybsanay nolol, rabbow hayna kala qarin rabbow hayga ka qarine. qaalidaan jeclahay naftu ay ku qanacday, quruxdaydiye ay ku qanacday, dhulkeennan qaniga farxad qiimo badaniyo aan ku qaybsanay nolol, rabbow hayna kala qarinay rabbow hayga ka qarine.
fardowsay qurbaan jiro waa meel qabow iyo baraf qaybu sidato waxaan kuugu qeexo tilmaan kuugu qiyaasana qaaradeeni kuma arag fardowsay qurbaan jiro waa meel qabow iyo baraf qaybu sidato waxaan kuugu qeexo tilmaan kuugu qiyaasana qaaradeeni kuma arag qardha iyo boorame qorraxay kismaayo garisqaaya heediyo diridhaba qabow male xamarna waaba quruxlay qaybkeed ka muuqdhe heestan fardowsada kale marka waxaad ii sheegtay abwan in sidaasoo kale nin iyo xaaskiisa kala maqan oo qurbaha wadankii maasha allah imika maanta way wada joogaan way isku yimaadeen aad baan u hambaleynaynaa aad iyo aad hambalyaanu leenahay bay la joogaan waa hambalyeynayna marka waxaad leedahay in kastoo aan dhoofo dibad iyo dhul dheer jiro kayd aan dhammaan baan qalbigayga dhigato dhiiggaad la socotaa qurux dheeli tiran buu rabbi kuu dhammeeyo dhowrsanaanta sharaftiyo dhaqankiiyo asluubtana dalgobeed ayaa tahay waa cajiib abwan heesahaaga intaan dhegaysanayey ama aan daawanayey waxyaabaha sida gaarka ii soo jiitay waxaa ka mid ahaa markaad rabto inaad ammaanto qof dumara muuqaalka abwaanada kale badanaa waxaad mooddaa inay xoogga saaraan muuqaalka iyo midabka iyo dhirirka iyo adiga waxaad xoogga saartaa dhaqanka wanaagsan asluubta diinta dhowrsanaanta heesahaaga gebigoodba waxaad mooddaa in laga helaya ereyadaas waa sidaan cabdi gabadh haddii intaa dhowrsanaanta iyo degenida iyo sharafta iyo asluubta inta haddii laga waayo gabadh ma noqonayso soma si kastoo u qurux badan tahay quruxda faa'iido qurux ma waa iimaankii iyo deganaanshihii waxa weeyaan diintii inta hadday gabadh laga helo waa meel loo dhaafo ma laha suldaan diin imaam male aad iyo aad ustaad jini ishumi dabcan heese badan baad laxan ka saartaa abwaankan khadka kugula jira cabdulaahi xawayaan keliya 21 hees baad laxanka u saartay haddana iskuma ekaadaan heesaha aad laxamada u saarto mid u eg ama lagu soo qabanayo ama shabahdo kuma jiro laxamadaada arrintaas dhib intee la eg baad ka martaa wallaahi abuu horta waxaa hiban ilaahay bixiyo waayo aniga laxamka maba ku dhibtoodaba midaada kale waxaad moodaa markii laxam aad sameynaa iskama ilaaliyo shalay meeshad marka intay ahayd iyo ma ilaahe meel anigu markan laxam sameynaayo waa layla shaqeeyaa qolaa ila shaqeyso waa qolaba qolaa ila shaqeyso aan ugu jeedin duul aan la arag maya duul aan la arag amuurnaa shaqirnaa ay ii noqotaa aniga ma garat waa gartay adduunyada dhan afarteeda jiho meela laxam aan u sameyna habeenku marka ugu yarta 2 laxam 3 laxam sameeya marka ugu yarta oo cabdallah aanu ku jirin mararka qaarkeed mid u eg lama sheego dadka aniga waxaa isle ama isu ekaada marmara isla waxa samaysa ama qoorta isu galaan haddana ilaahay amarkiis isuma ekaado marka wax sameynayabo maxiyad cusub iyo meel cusub ilan galay yaa arkayaa markaasaan anigu waxaan raadiyaa aniga waa jilaa laxamka dib aan u jilaa oo meeshan maraayo waa jilaa oo marka alxamdulilah ilaahay istakhiray marka sidaas waaye waxaan inta gabadh la dhehdee ku dhex nool adduunyada fardowsay dhammaantood sida kuula dhacayadi ma wax loo dhiga jira inkastoo andhoofon dibadiyo dhuldheer jiro kayd aan dhammaanbaad qalbigayga dhigato dhiigaad la socotaa inkastoo andhoofon dibadiyo
jiro kayd aan dhammaanba qalbigayga dhigato dhiigaad la socotaa dhiigaad la socotaa qurux dheelitiranbu rabbi ku dhammeeyo dhowrsanaanta sharaftiyo dhaqankiyo asluubtana dalgobeedayaa tahay dalgobeedayaa tahay qurux dheelitiranbu rabbi ku dhammeeyo dhowrsanaanta sharaftiyo dhaqankiyo asluubtana dalgobeedayaa tahay dalgobeedayaa tahay dehashada kalgacalkeen dab ugu midowna nafta dhiirigeliso marwadaygu dheerey aniga dhabku jecel dehashada kalgacalkeen dab ugu midowna nafta dhiirigeliso marwadaygu dheerey aniga dhabku jecel dumarkana dhammaantood samir baad ku dhaaftaye heesta ugu dambaysa aan dhegaystayaasha la wadaagi doono waa heesta la yidhaahdo ayaan waa gabadhaan aqaanay waa gabadha awaara aad u fiican weyaan oo in wanaagsan bahayd oo maaragtay markii dambena waxay joogtaa isgu dhamay timid dhaqankeedii iyo wanaaggeedii wax isbedel male ma garat waa garatay marka gabadhan gabadh waxaa dhalay sheekh fiican baa dhalay oo naqaanay iyadana waa naqaanay imika maasha allah iyadana imika waa la guursaday taan heesta u samayna kadib waxaan leenahay khayr leh markaad heesta u samaysay kadib baa la guursaday haa marka heestaas maxaa ka mid a erayadeeda waxaa ka mid a nacamta adaaniya dareediyo nasab daahiraa tahay hablaha daadeediyo dumar ugu filraano dooxadii gurracan iyo ananu dacaladeediyo dacar xaaba weyniyo ma kooro nabadeed darmaan lagu gardaadsho dayax nuurka moodo dunta lagu xidhaa tahay marka waa hees dheer halka heesaa kale sheeshanta yihiin suldaan maan tijaabo ka qaadayo min 11 maan ka dhigay shinishimaan dhiyo uu la xameey suldaana kolkii uu soo turay kolkii tijaabada ka baxay heesta ayaan amina loo dhiibnay yaan qorshaysteen amina loo dhiibo waa gartay aad iyo aad haye suldaan heestaas ayaan bal ka waran ayaan waa heesta iyadana aad u qurux badan laakiin abwaanku halkaa wuu igu xaday waa ku tijaabinayna iguma dhihin sidaa waan ka jecel xardi lahaa waa gartay macalinkayga laxanka quruxda badan saaray heeskaana waxay ka hadlaysaa qof wanaagsan oo dhul wanaagsan ka soo jeeda ayaanay duurkiyaadiyo nasab daahira tahay ayaanay duurkiyaadiyo nasab daahira tahay hablaha da'deediyo dumar ugu filroono doxadii gurracaniyo anaanu dacalladeediyo dacar xaaba weyniyo dusma koora nabadeed degga lagu gardaasho dayax nuur la moodo dunta lagu xidhaa tahay doxadii
guracaniyo anaanu dacalladeediyo dacar xaaba weyniyo dusmakoora nabadeed deggan lagu gardaasho dayax nuur la moodo dunta lagu xidhaatae waxa wadar dadnimadiya loogu deeqay gobanimo gabdhaha durriyadee daanjarar u dhaliye quruxdoodan dahabkiyo ilkahoodan dabar kale ruuxii mar daawada qalbiga ku dararo kama daalo eegmada fafan iyo diridhaba qorraxeeyo dooliyo erar daqsinteediyo sidii oon ku diirsado fafan iyo diridhaba qorraxeeyo dooliyo erar daqsinteediyo sidii oon ku diirsado darma lagu gardaasho dulqadiyo asluubiyo dabci lagu manaysto meesha dunida joogtaba dhaqankii dadkeediyo deegaankeeda jeceloon doorsoomin baa tahay ayaane darma lagu gardaasho dulqadiyo asluubiyo dabci lagu manaysto meesha dunida joogtaba dhaqankii dadkeediyo deegaankeeda jeceloon doorsoomin baa tahay ayaane waxa wadar dadnimadiya loogu deeqay gobanimo gabdhaha durriyadee daanjarar u dhaliye quruxdoodan dahabkiyo ilkahoodan dabar kale ruuxii mar daawada qalbiga ku dararo kama daalo eegmada nogob dunyadeediyo duurjoogti daawiyo dalagii afdheeriyo liban oo ideeqdiyo nogob dunyadeediyo heestaa waxaanu marinay 6 tuulo 6 degmo iyo 11 gobol ee kilka shanaad 6 tuulo 5 degmo iyo 11 gobol ee kilka shanaad maraysa heestaas 11 gobol waaw waa hees gaara marka oo mudan in si gaara loola socdo iyo waliba magaaladii dirdhaba wadanka Soomaaliya meel aan soo barin ma jiro iskoolka kow arabsiyan ka bilaabay xamar in Allah la xasuuyo xamar ba ku xamar oo soo koray waxa meel aan soo barin ma jiro ustaad jinni ishumi hadday sidan ku bilaabayba adiga laftirkaaga dadka qaarkii magaca markii jinni ishumi ay maqlaan inkastoo aad noo sheegtay taariikhdii uu ku yimid in magaca laba jeer la kala bixiyey dib la isugu qabtay oo hal magac uu noqday haddana jinni ishumi hadda magacyada saddexdiinaba waxaad moodaa magacyo khaasa oo unique ah in aad leedihiin cabdulaahi xawayaan jinni ishumi fanaanka laftirkiisa saddex magac oo magacyadii soomaalida lagu yaqiina ah buu sitaa oo suldaan seeraar guhaad baa la yidhahdaa marka waxaa laga yaabaa dhegaystayaashaba magacyadiina in cashar gaara uu u noqdo horta kuukaayow suldaan waxaa ii warsataa isagoo la waraysanaa ma garanaysaa heesaa kamid ah fardoos maahan heesta waxaa tuulooyinka badan iyo maraysa marka ka heesaaya ayaa la waraysto war suldaan heesta markaasoo
warnimada heesta caawaan idinhayo warkeed midin sheegay marka heesta nooca waa heestaas haye abwaanka sameeye waxaa leedaha mar hadii sheegaya xawayaan haye asxaab qaali asugu timi laxamiistaada haddaa idin sheeg waa jini sumi waa gartay asxaab qaali asugu tagtay asxaab qaali dadkii dhala kala daatay war maxaa tiri markaas dawa xawayaan ninka abwaankayga macaan oo jeclahay laxamiisteeda walaalka uma jecla macalinkeyga waa jini sumi hadda kawaraba waxa idin dadkaasa wax ku darsada caawa waa gartay waa wax aad loogu qoslo waati hadda aan sheegayay oo haddii la yidhaahdo waa fani way suldaanow waa labada nin aniga banaanka abwaadkayga sidoo kale cabdullaahi waa maasha allah suldaanow waayahay waa qalbigiisa maanka allah u dhaafo aad iyo aad xaggooda jirta ayaga ii duceynaya aad iyo aad waayahay waa ka sugayaa ducada aad iyo aad baa ducada iyo aan ugu waaya gabagabadii baan kusoo dhownahay suldaanka laftirkiisa ayaan gelaynaa hawshiisa markii hore meelaha kale baan soo marmaraynay waa soo leexleexaynay hadda waxaa la yidhi biyo meel godan bay isugu yimaadaane suldaankii baan ku biyo shubanaynaa waxaa jira heese aan weli soo bixin laakiin dhowaantan soo bixi doona oo adiga laguu sameeyey oo adiga ku quseeya heeskan amuun waa hees aniga khaas ah waxaan u qaaday gabadhayda oon jeclahay oon la higirta noloshaada iyo cimrigaaga ka dhiman farxad ku noolow aan kala maqannahay insha allah wakti dhowna aan heeroobi doono hadduu ilahay raali ka noqdo waataan hore u sheegayba inta kala maqan ma yara inta kala maqan ma yara aad halkan ooga salaamaya inta kala maqan ma yara marka heeskan anay khaas ii tahay insha allah haddii la yidhahdo gabadhaydaan ugu talagala anana abwaanka la hadlo ku idhi gabadhaasi waa gabadhaydiya waa inaad heeska weliba qabyaaladaysaan suldaanayna maqashidana waa dhow waxay beri ka dambeeya waa sugaynaa soo ma insha allah abuna maadaama magaceeda soo qadna halkaan ka salaamayna maadaama haya joogto halkaan ka salaamayna iyadana aad iyo aad dumaashideen waa wada salaamaynaa salaam baan halkan u wada marinaynaa waa ducaynaynaa annagana bal in si degdega reerkaas uu midoobo waa sidaa masaasaan rajeynaa reer khayr allah ka dhigo insha allah bismillahi kariim ilaahay ku midoobo insha allahu marka imika waxaad macal heesooyinkii hooyooyinka lama iloobi dabkay soo saarayin waa soo socdaan hooyooyinka aad iyo aad may sicid nuurguraa la xameeyey cirka kusoo jiraan mid nuurcadda fanaanka horaan soo rogol celi nuurcadda oo waa soo wada isaguna mid waa gartay si xariir oo qaaday caawa si xariir oo qaaday maxay ahayd oo ilaa iyo caloosii halkaas aadi daaway soo saaran tahay waa dhaanta samayna waxa la yidhi ma tirsano hal baan isku dayay iyadana oo axmed shaqalaan u dhibay maraykanka nala jooga dhaanta miya way soo socotaa iyadana aad iyo aad may wax badan baan aan idinka sugaynaa dabcan saddexdiinu inta hawada kusoo jirta tira male aad iyo aad dabcan aad baan idinkugu mahadnaqayaa waxaad tihiin saddex qof oo bulshada soomaaliyeed kaalin weyn ugu fadhiya abwaanka iyo ustaadka mulaximka iyo fanaanka oo suldaanka geeska magacaaba qaatayba magacaana waa gartay marka hore magacaygu dadku naanays bay moodi jireen suldaan marka la yidhaahdo naanays bay moodi jireen laakiin magacayga saxda ah weeyaan suldaan marka suldaanka geeska cabdiaskari oo halkan aada uga salaamaya isagan ayaa ku laday oo suldaanka geeska ii raaciyey aad iyo aad ninka dadka iskaaga baraba waa cabdiaskari saddexdeeda magaca lala waa salaamaynaa cabdiaskari saaxiibkeena isagana aad baan u salaamaynaa dainjarar u dhaliye quruxdoodan dahabkiyo ilkahoodan dabar kale ruuxii mar daawada qalbiga ku dararo guud ahaana barnaamijkii cawayska washington waa naga intaa waxaa marti ku ahaa abwaan cabdulaahi xawayaan oo maraykanka jooga
siciid nuur guura jinni ishumi oo nairobi jooga iyo weliba suldaan seyraar guhaad oo jigjiga ku sugan dhammaantood khadka telefoonka ayay ku wada jireen tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa erar daqsinteediyo sidii ohoon ku diirsado fafan iyo diridhaba qorraxeeya dooliyo erar daqsinteediyo sidii ohoon ku diirsado darma lagu gardaasho dulqadiyo asluubiyo dabci lagu manaysto meesha dunida joogtaba dhaqankii dadkeediyo deegaankeeda jeceloon doorsoomin baa tahay ayaane darma lagu gardaasho dulqadiyo asluubiyo dabci lagu manaysto meesha dunida joogtaba dhaqankii dadkeediyo deegaankeeda jeceloon doorsoomin baa tahay ayaane waxa wadar dadnimadiiyo loogu deeqay gobanimo gabdhaha durriyadee daynjarar u dhaliye quruxdoodan dahabkiyo ilkahoodan dabarkale ruuxii mardaawada qalbiga ku dararo kama daalo eegmada nogob dunyadeediyo duur joogti daawiyo dalagii afdheeriyo dhiban oo ideeqdiyo waa hagaag dhegaystayaal heestaasina waxaa u dambaysay barnaamijkeennii cawayska washington waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen guud ahaanna idaacaddayadii fiidnimo waxaan ku soo gabagabayn doonnaa heestaasi waa anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc maxamed cabdi xasan sadheere iyo bashiir abikar iyo guud ahaan bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirta aan la qaadin waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirta aan la qaadin wanaagga haddii la daadsho xumaan weel lagama buxsho wacnaantu hadday cidlowdo wadeecaa kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga wanaagga haddii la daadsho xumaan weel lagama buxsho wacnaantu hadday cidlowdo wadeecaa kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga jacaylku hadduu wareego walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican